federaalka ah wasiirka maaliyadda maamulka rugta ganacsiga iyo xubnaha rugta ganacsiga maamulka rugta ganacsiga gobolka Banaadir iyo xubnaha ganacsiga gobolka Banaadir iyo dhammaan marti sharafka media dhamaantii waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh salaan ka bacdi mudan madaxweyne iyo mudan wasiir aad ayaan idinkaga mahadcelinaynaa kulankan qaaliga ah oo maanta aad jaaniska noo siiseen inaan aaraa iyo fikir aan isku dhaafsano ganacsatada waxay aad ugu faraxsan yihiin kulanka mas'uuliyiinta inay marar badan arkaan inkastoo waqti uusan jirin laakiin waxaan aad u jeclaan lahayn bishiiba inaan mar ama 15 beriba mar inaan helno kulamadan inkastoo hadda bariyahan aan ka mahadcelinayno inaan helno wasiiro facaal ah oo dhibo badan oo aan madaxweynaha aan ula imaan jirnay aan hadda rajeynayno inay iyagu naga xaliyaan sida hadda dhacdayba maalmihii ugu dambeeyay oo ay nagala qayb galeen kulankii wasiirka maaliyadda wasiirka dekedaha iyo wasiirka gaadiidka cirka iyo dhulka ee hadda ugu dambeeyay doorka dekeda ka dhacay ee aan rajeynayno inay si ugu fudud ay hadda u soo xaliyaan waxaan rajeynaynaa in barnaamijyada noocaas ay soo bataan oo aan wax badan ay nala qabtaan wasiirada sida haddaba ay bilaabatay mudan madaxweyne waxyaalaha ay ganacsatada daneynayaan waxaa ka mid ah inta badan xafiiska madaxweynaha marna kama maqalno la taliyaha dhinaca ganacsiga ee madaxweynaha ma aragno waxaan isleenahay haddii kaasi la heli lahaa waxaa fududaan lahayd inaan isaga wax walba inta ku gurno si tartiiba isaga oo inta kugu sheego mararka qaarna aan saan isu helno marka xafiiska waa jeclaan lahayn in la helo la taliyaha madaxweynaha dhinaca ganacsiga waxaan kaloo aad u jeclaan lahayn madaxweyne aniga dhinaca waxaan rabaa horumarka inaan aad uga hadlo wixii kale aad looga wada hadlay safarada madaxweynaha ee dibadaha oo u baxay aan siyaasadda aan ahayn ee mararka qaarkood aan isleenahay ganacsiga qayb uu ka yahay inaan garbahaaga buuxino inay ganacsatada ku raacday diyaar u tahay inay maaragtay tigidhadooda iska dhiibaan diyaar u yihiin inay hoteeladooda iska dhiibaan diyaar u yihiin halkii mar u horeyso saanay oo London aan isla tagnay waxaan u maleynaa dhowr baawur ku dhinac socotay meesha hal baawur iyo laba baawur mararka qaar airportada lagaga qaado waxaan rajeynaa saasoo kale inay qurux ku noqon doonto safarada waxaan isleenahay marka safarada dambe ee la balan doono inaan qayb ka noqono anaga laftigeenu waa isqaabeyn doona ma noqon doonto 3 qof 4 qof kaliya inay markasta ku raacdeen hadba nooca loo socdo haddii kalluun loo socdana kalluunaan diyaarin doonaa haddii beero loo socdana beeraan diyaarin doonaa haddii loo socdo maxaan ku raadin dib u dhisna dhinac walbaan kala diyaarin doonaa waana ka gudbi doonaa ganacsiga yararka ee gediska oo ku soo boodnay waana midka hadda aan ku noolno 20 sano magaalada Muqdisho iyo Soomaaliyaba ay ku badbaaday waa ganacsiga gediska yaryarka ah ee haddana aan sida hadda aad ka arkaysid ee hadda noo bilaabatay ganacsatada inay maalgelin aysan ajnabi ka sugin ayagu ay iskaashadaan waxaan hor u haysan jirnay isgaarsiinada waaweyn bunugta iyo xawaaladaha hadda waa aragtaa dhiboodida waaweyn ayaa la furay maxjarkii yaa jira dib u dhiskii oo real estate-ka bilowday waxaan isleeyahay marka ma aysan sugin ayaga iskaashanaya ganacsatada dhexdooda markay iskaashadaan waxaa ka soo bixi doona horumar xooggan ka soo bixi doona iskaashkaasna waa bilownay waana sii wadi doonaa tala badanna waa la yeelan doonaa wasaaradeena haddii ilaahay yiraahdo mudane madaxweyne waxaan rabaa warkayga inaan ku soo gabagabeeyo inaan ku riraano ku garab taaganahay wax badanna si hoosaan isugu sheegi doonaa insha Allah haddii la yiraahdo media ahayn waa maasantiin ganacsatada. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.